farmaajan la hadlo ku war ma adiga Soomaaliya ninkan ku soo qaadayo oo soo keenaya aqli baa ina wadaad isfuraan oo cid isku keenis isla uu garso wuxuu wallahi danku isaga aad xurriyahay inuu hado teewati murak badan ka dhacay farmaajan la hadlo ku war ma adiga Soomaaliya ninkan ku soo qaadayo oo soo keenaya aqli baa ina wadaad isfuraan oo cid isku keenis isla uu garso wuxuu wallahi danku isaga aad xurriyahay inuu hado marka hore ka tagay ayaa nin la soo diray arrimaha dibadda ee Itoobiya waxa Brit Koytonka wax ku doonay ra'iisul wasaaraha muftiga misaanka adiga waan soo wariyaarehe xagga wax ka qabanay khayr waxa uu talo maxaa loo wadaa waayeen wada aniga farto basnaan kharajka xafiis madaxweynaha tagnay markii loo yeeray waxa kharaj show xaajigan abiye xaga kale wuxuu uga yeeray farmaajo wuxuu soo kaxay kharajkiisa markaan xafiisku deen meel badan fadhiyo meel kala show iyo fadhiya labadii kharaj uu reebo wuxuu labadii kala xafiis rabaan ugu tar أكثر بنو آخر وليه إن هالشيسة ومحكت كان إياس بنو أتكيو فما جاري أنا في سبان ديار رسولي أضاد قلانا سادي حدو قاعد مر فرماتشو قلنا وحيي وحربون قهور هاي سيدي لو شريب oo waxa meesha ka dhacay waxa isagu dan kale waa heshiis maya dee ileen arintu dee isaga laftiisa kids xagan waxaan kulkaan ku kaablad galayna waxa war balantii Ramaphosa aanu ka sugeynay ayaa la arkan kicisay warkaas wuxuu leeyahay inaga isku xigna char baynu nahay wax walba oo dhawaynayna waraagana dee afkii diraasadku qaday waxaan ugu dhiibaya deetana isaga Farmaajo waa saaxiib waa markii Eritrea iyagii iswatee وكي واحد والبلد السيد كده هو ضد كورونا مركا أنا واحد هيدين إمك يجا كعص مركون هو أتكلم كده أنا متكون شاقو أنا حزبي يبقى لما باي دورتي وعد بالي دورتي فرنت اسمه ليدي كلا جوء بدل كلام هذا إلى أن يجي يكون نقضاء يجي يدرك أن تجنا تتناول حريواي والرسولي أوكي تيساقي waxa marka anagu hadana waxa leeyahay waxa baxaya madaxweynaha Nigeria markaas uu yidhi jiray madaxweynaha Brazil ku sidoo yalla saada tawad waabo ma fadhina salka ka fadhino tana waxaan ku war imika halkan anagu arintaas oo arin culus tistorka ku qoran tahay laba fargelin karo wala madaxweynaha wala wasiir talak soo tusto ina wada hadlo aduntii banaga wuxuu waayahay maanta wala kala baxay kana laftiisu u bixi lahaa sidoo sheegay wardi karo ku soo way habeenimada diyaar baha dalka tubax dikla wayar waxa waayahay aan kala baxno degdeg soo jawaab marka waan midode hay'adihi ay ku khusaysan caalamka wax goor sheekadaas marka Farmaajo wuxuu yiri markii uu lahaa waa in Soomaaliland wixii gaaray laga loo garowsada farmaajo wuxuu aanu markaa tago waxaan akhriyaa khudbada ku garowsanayo wixii dhacay waan akhri ka soo fududeeyay waxay ha farmaajo laakiin uu fududeeyay sida uu fududeey karaayda ilaa xaggana barashar ma ka haystee iska yaraaf gobaad sibay waayo uu yiri inaan ciidana oran buu yiri laakiin dee culays kala haysta ilaa isaga dad baa soo aduu ku daalata asaaka inta inaan dee dadkii oo dhan idhaahdo reer maxay la tahay dadna abiyo ki ku adkaystay heri hor aduu farmaajo soo kaxayn farmaajo la hadlo ku war ma adiga Soomaaliya ninkan ku soo qaadayo oo soo keenaya aqli baa ina wadaad isfuraan oo cid isku keenis isla uu garso wuxuu wallahi danku isaga aad xurriyahay inuu hado teewati murak badan ka dhacay marka taasi hawl badan bay ahayd aadu isku heshiinay ninkii abiyo markii damaadan markii dhaqaaq weeyda ku war shacabka haya waxa ku aniga saadan ma yihiin awood badan igu kaadi farmaajo la hadlo ku war ma adiga Soomaaliya ninkan ku soo qaadayo oo soo keenaya
عقلي بقى انا بدرس فلان وعدد سوي كينس سو قرصو وحول والله دنكو سغا هذا حر حياه انه هاتو marka hore ka tagi ayaa nin la soo diray arrimaha dibadda ee Ethiopia waxa brit ku toonka wax ku doonay ra'iisul wasaaraha muftiga misaanka adiga waan soo wariyare xagga wax ka qabanay khayr waxa uu talo maxaa loo wadaa waayeen aniga farto baslaan kharajka xafiis madaxweyne tagnay markii loo yeeray waxa la kharaj show xaajigan abiye xagga kale wuxuu uga yeeray farmaajo wuxuu soo kaxay kharajkiisa markaan xafiisku deen meel badan fadhiyo meel kala soo iyo fadhiya labadii kharaj uu reebo wuxuu labadii kala xafiis baan ugu tar أكثر بنو آخر وليه وا إنها شيسا ومحكت كان إياس ونو أتكيو فما جاري أنا في سبان وديار رسولي أضاد قلانا سادي حدو قادة مر فرماتشو ونكي وحيي وحربون قلها هاي سيدي لو الشريب oo waxa meesha ka dhacay waxa isagu dan kaba wada heshiisay maya dee ileen arintu dee isaga laftiisa kids xagan waxaan kolkaan ku kaablad galayna waxa war balantii Ramaphosa aanu ka sugeynay ayaa la arkan kicisay warkaas wuxuu leeyahay inaga isku xigna char baynu nahay wax walba oo dhawaynayna waraagana dee afkii diraasadku ka hadlay waxaan ugu dhiibaya tana isaga Farmaajo waa saaxiib waa markii Eritrea iyagii iswateen waakii wax walba la deesiyay dekedaha wadanka oo dhan marka anna waxaan haydeen imika iyaga ku cusub markuu uu adkaan ku dhaay aan mid ku sheego anaga xisbi iyo baarlamaan baa doortay oo cod baa lagu doortay fariintaas ma la dhiibi kala go'a bidan la kala hadal ila aan iyaga ku noqdo iyaga iyo dalka aan tagana dadna waxa ay waay markaasuu yiri okay isagii waxa markaa anagu hadana waxa la waxa baxaya madaxweynaha Nigeria markaasuu ay dejiyeen madaxweynaha protocol ku sidoo yalla saada waa fadhina salka ka fadhino dadna waxaan ku war imika halkan anagu arintaas oo arin culus tistoorka ku qoran tahay laba fargelin karo wala madaxweynaha wala wasiir talak soo tusto ina wada hadlo aduntii munaga wuxuu waayahay maanta wala kala baxay kana laftiisu u bixi lahaa sidoo sheegay wardi karo ku soo way habeenimada diyaar baha dalka tubax dikor way waxa waayahay aan kala baxno degdeg soo jawaab marka waan midode hay'adihi ay ku khusaysan caalamka wax goor sheekadaas marka Farmaajo wuxuu yiri markii uu lahaa waa in Soomaaliland wixii gaaray laga loo garowsada Farmaajo wuxuu aanu markaa tago waxaan akhriyaa khudbada ku garowsanayo wixii dhacay waan akhri ka soo fududeeyay waxii ha Farmaajo laakiin uu fududeeyay sida uu fududeey karaayda ilaa xaggana barashar ma ka haystee iska yaraaf gobaad sibay hayd waayo uu yiri inaan ciidanaha oo oran buu yiri laakiin dee culays kala haysta ilaa isaga dad baa soo aduu ku daalata asaa keenta inaan dee dadkii oo dhan idhaahdo reer maxay la tahay dadna abiyo ki ku adkaystay heri hor aduu Farmaajo soo kaxayn Farmaajo la hadlo ku war ma aduu Soomaaliya ninkan soo qaadayo oo soo keenaya aqli ba ina wadurus furaan oo cadays ku keenis isla garso wuxuu wallahi danku isaga aad xur yahay inuu haato teewati muraqbada ka dhacay marka taasi hawl badan bay ahayd aadu isku heshiinay ninkii abiyo markii damaadan markii dhaqaaq weydaan ku war shacabka dee haya waxa xukuumay aniga saadan ma yihiin awood badan igu kaadib